Maanta marka la maqlo magaca Dubai, dadka badankood waxay maskaxda ku sawirtaan dhismayaasha dhaadheer ee cirka taabanaya, jasiirado gacan lagu sameeyay, baabuurta raaxada, hoteelada heerarka caalami iyo suuqyo ay ku kulmaan ganacsatada dunida. Waa magaalo lagu tilmaamo astaanta horumarka iyo casriyeynta. Laakiin qarnigii 19aad Dubai sidaasi ma ahayn. Muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa sida ay Dubai ku noqotay magaalada ugu qaninsan uguna caansan bariga dhexe, taariikhda iyo aasaaska Imaaraadka Carabta. Waxay ahayd tuulo yar oo ku taalay xeebta gacanka Carabta, halkaasi oo dadka degan ay noloshoodu ka raadsan jireen kalluumaysiga, quusidda luulka iyo ganacsi yaryar oo ka dhici jiray marin-biyoodka dabiiciga ee la oran jiray Dubai Creek. Marinkan biyaha ayaa noqday halbowlaha nolosha magaalada, maadaama maraakiibta ka imaanaysa Hindiya, Fariis iyo bariga Afrika ay halkaasi ku soo xirtaan si ay badeecooyin ugu kala iibsadaan. Goobta istiraatiijiga ee Dubai ayaa ahayd hanti ka muhiimsan kheyraad kasta oo dabiici ah. Bilowgii qarnigii 19aad, boqortooyada Ingiriisku waxay doonaysay in ay sugto ammaanka maraakiibteeda ganacsi ee u kala gooshi jiray Hindiya iyo Yurub si ay u xaqiijiso badiqabka marinadaasi muhiimka. Waxay sanadkii 1820 heshiis la gashay hogaamiyaasha deegaanada ku yaala xeebaha gacanka Carabta. Heshiisyadaasi waxay soo afjareen colaadihii badda, waxayna gobolka u horseedeen xasilooni ganacsi. Dhulkaasi ayaa markii dambe loo bixiyay Trucial States, iyadoo Ingiriiska uu ilaalinayay difaaca badda, halka maamulka gudaha uu sii ahaanayay gacanta amiirada deegaanka. Wax yar kadib sanadkii 1833, Sheekh Maktoum bin Buti Al Maktoum iyo xubno ka tirsan qabiilka Bani Yaas ayaa ka soo guuray magaalada Abu Dhabi, iyagoo si nabad ah ula wareegay maamulka Dubai. Halkaasi ayay ka bilaabatay xukunka qoyska Al Maktoum oo ilaa maanta maamulo magaalada Dubai ee isu tagga Imaaraadka Carab. Hogaamiyaasha qoyskani waxay fahmeen in kobaca magaalada lagu gaari karo ganacsi, sidaa darteed waxay yareeyeen canshuurihii dekedda, waxayna soo dhoweeyeen ganacsatada ka imaanaysay Iiraan, Hindiya iyo dalal kale. Go'aankaasi ayaa saldhig u noqday dhaqaalaha casriga ee Dubai. Muddo dheer ilihii dhaqaalaha Dubai waxay ahaayeen kalluumaysiga iyo ganacsiga luulka. Hase yeeshee horaantii qarnigii 20aad, markii dunida ay bilowday isticmaalka luulka macmalka, suuqa luulka dabiiciga ahaa waa uu burburay, waxaana Dubai soo food saaray dhaqaale xumo. Laakiin masiirka magaalada wuxuu mar kale isbedelay sanadkii 1966, markaasi oo shidaal laga helay magaalada Dubai. Dakhliga shidaalka ayaa lagu dhisay wadooyin, iskuulo, isbitaallo iyo kaabayaal casri ah. Si kastaba ahaatee, hogaamiyaasha Dubai waxay ogaayeen in kaydka shidaalkoodu uusan la mid ahayn kan magaalada Abu Dhabi oo haysta inta badan shidaalka dalka. Halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen saliidda, waxay doorteen in ay dakhligaasi u adeegsadaan dhismaha dhaqaale waara. Hogaamiyihii ugu saameynta badnaa ee arrintaasi hirgeliyay wuxuu ahaa Sheekh Rashid bin Saciid Al Maktoum, wuxuuna aaminsanaa in haddii la dhiso dekado, garoomo diyaaradeed, wadooyin casri ah, ganacsiga dunida uu si iskiis u imaan doono. Aragtidaasi ayaa dhalisay mashaariic waaweyn oo bedelay wejiga magaalada Dubai. Sanadkii 1971, markii Ingiriiska uu soo afjaray heshiisyadii ilaalinta ee ula lahaa Imaaraadyada gacanka, Sheekh Zayed bin Suldaan Al Nahyan oo ahaa hogaamiyaha Abu Dhabi iyo Sheekh Rashid ayaa hormuud u noqday mideynta 7 Imaaraad. Sidaas ayaa lagu dhisay isu tagga Imaaraadka Carabta ee UAE. Abu Dhabi waxay noqotay caasimadda dalka iyo xarunta ugu weyn ee shidaalka, halka Dubai ay diiradda saartay ganacsiga, maalgashiga iyo adeegyada. Mid ka mid ah go'aanadii ugu waaweynaa wuxuu ahaa dhismaha dekedda Jabal Ali oo la furay sanadkii 1979. Dad badan ayaa xilligaasi u arkayay mashruuc qaali ah oo aan loo baahnayn, balse maanta waa mid ka mid ah dekedaha ugu mashquulka badan dunida. Hareeraheeda waxaa laga sameeyay Jabal Ali Free Zone oo ah aag ganacsi oo xor ah, halkaasi oo shirkadaha caalamiga ay helayeen fursado maalgashi iyo canshuur dhimis. Taasi waxay Dubai ka dhigtay albaabka ganacsiga ee u dhaxeeya Yurub, Asia iyo Afrika.
guushaasi waxay sii xoojisay markii sanadkii 1985 la aasaasay Emirates Airline. Waxay ku bilowday 2 diyaaradood oo keliya, hase yeeshee maanta waa mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ugu waaweyn dunida. Emirates waxay dunida u fududeysay inay gaarto Dubai, halka Dubaina ay dunida u furtay albaabkeeda. Intii ay ka faa'iideysanaysay ganacsiga iyo duulimaadyada, Dubai waxay si xoogan u maalgelisay dalxiiska. Waxaa laga dhisay Burj Al Arab, Palm Jumeirah iyo Burj Khalifa oo ah dhismaha ugu dheer dunida. Mashaariicdaasi ayaa magaalada u bedelay goob ay sanad kasta booqdaan malaayiin dalxiisayaal. Waxyaabaha kale ee guusha Dubai qaybta ka noqday waxaa ka mid ah nidaamkeeda ganacsi. Dowladda UAE guud ahaan canshuur kama qaado dakhliga mushaharka shakhsiyaadka, waxaana jira aagag ganacsi oo xor ah oo soo jiitay kumanaan shirkadood iyo malqabeeno caalami ah. Maanta dhaqaalaha Dubai wuxuu inta badan ku tiirsan yahay ganacsiga, gaadiidka, duulimaadyada, dalxiiska, adeegyada maaliyadeed iyo suuqa guryaha, halka shidaalka uu noqday qayb yar oo ka mid ah dakhliga magaalada. Dhanka kale, muwaadiniinta Imaaraadka waxay helaan adeegyo ay ka mid yihiin waxbarasho iyo daryeel caafimaad oo ay dowladdu maalgeliso, kaalmo dhinaca guryaha iyo adeegyo bulsho oo kale. Hase yeeshee, helitaanka dhalashada UAE waa mid aad u adag, mana aha xuquuq si fudud loo helo. Inkastoo Dubai lagu ammaano horumarkeeda, haddana waxaa jira dhinac aan inta badan laga hadlin. Magaaladu waxay ku tiirsan tahay malaayiin shaqaale ajaanib oo ka kala imaado dunida daafaheeda kala duwan, oo ka shaqeeya dhismaha, adeegyada iyo shaqooyinka guryaha. Muddo dheer waxaa jiray dhaliilo ku saabsan nidaamka kafaala, kaasi oo ku xiriya shaqaalaha in weligood ay u shaqeeyaan maamuladooda ama dadka ay u shaqeynayaan, isla markaana sababay cabashooyin la xiriira mushaharka oo hoos u dhaco ama mushaharka oo ka daaho shaqaalaha, baasaboorro lagala wareegayo muwaadiniinta ka imaanaysa wadamada kale, iyo xaaladaha shaqo oo aad u adag. Dowladda UAE waxay sanadihii u dambeysay hirgelisay dib u habeen lagu xoojinayo xuquuqda shaqaalaha, inkastoo ururada xuquuqda aadanuhu ay weli ku baaqaan isbedelo dheeraada. Ugu dambeyn, sheekada Dubai waxay caddeyn u tahay in magaalo lagu dhisi karo aragti fog iyo qorshe dhaqaale oo waara. Shidaalku wuxuu siiyey fursad ay ku bilowdo horumarkeeda, balse waxaa wax ka dhigay quwadda dhaqaale ee caalamiga waxay ahayd maalgashi joogto ah, ganacsi xor ah, kaabayaal casri ah iyo hoggaan rumaysan in mustaqbalka lagu guuleysan karo ka hor inta aan la gaarin. Intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa maqaalkan iyo muuqaalka maanta. Anigoo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf ayaana idinla socodsiinaya. Fadlan subscribe inoo saar channelkan, like gareeya muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. Waxaan rajaynayaa in wax badan aad ka faa'iidi doontaan.